بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال waxaa aan ku soo qaadanayna xubintan barnaamijka layaabka sportska sida la socoteen hore waxaan wareys u leeyahay oo cajiib ah ciyaaryahanka kooxda dekada dhawaan ku beeray lagu magacaabo Daawud Cabdullaahi Tubaal wareysigaasi oo dad badan oo dunida jooga oo Soomaaliya aad ay u jecleysteen kadib codsigaasi markii uu bato waxaan jecleysanay inaan xubintan ku soo kordhino barnaamijka layaabka sportska aan ugu magac darnay xubinta su'aalaha ciyaartooyga maanta waxaa ila fadhiya بلم حدين برالي وهو رئيسي داود قيب كأها يدو مركاسي لود دورتي أما مركاسي وقاتي عياليان كأوبو فسك بدن أما أو جعل إندي بدو هذا مركو رسول هو بلي مدي وقتها أكلها برنامج كلابك ورئيسي قوة داود عبد الله توال سيف يعني وقتها أي قال أنت هذا كاش تهريبك وقعت صومين هذا وقعتها لكن وقعتي ننجع المجري إنه ciyaartooyda aan u jeedo dhan waa ku wada jiraan adiga xataa dadka ugu soo xiga ka bida dadkii ugu soo xiga waa la badan yahay taariifka jecel kow adiga adiga kow waa la badan yahay ciyaartooy wallahi billahi laba sheegna ciyaaryahan jecel inuu oo mar walba ku dhahayo waxaan jeclahay inaan ka ciyaaro dibadda meel hebel aan socda ku dhahayo waxa kamid ah muxuu ahaa ninka la dhahay Hazazi waxa kamid ah عباس أمين قباية ويا سؤالك ودي دونا أو عيارتودك سافسن أنا راح أكرمنا سلع عادي أنت عرفتنا كشكتت أوكي وحنكون ودينا عياريها نجعل عن باصد إبريس كان جعلان عن بولادة أما صورت أدو جعل إيران إني إني أو عيار صحفي إف سي باص إبريس بكا عناي ديرتاس دو هلا وحكي المرة وياي waxaan ka rabaa ciyaariyahan jecel intuusan ciyaarin ka hor inuu timaha jarto isku qurxiyo kulanka biriyo kale markuu dhaca maanta kale timaha jarjaranayo ciyaaryahan Maxamed Nuur Sharkey timajaro aadan intuu ciyaarin ka hor markuu galabtii leeyahay adiga 8 saac timaha jarnaa wayahay ciyaariyahan jecel inuu soo qabaysto kulanka intuu ciyaarin ka hor oo maanta dhan isnoo nuuriyo oo garoonka markuu aadayo kale isku diyaarinin oo safar ama diyaarad raacayo kale ciyaaryahan Hazazi wayahay kan biyada xataa markii la maro waa uu qabaystaa wayahay bil waxaan ka rabaa ciyaaryahan guuldarada aad u neceb oo xataa dadka la jir la dagaalo ama macallimiinta la dagaalo guuldarada neceb ciyaaryahan Mustafa Nakuja oo kooxdeegana kamid Porteria waaya waxaa sheegtaa ciyaaryahan jecel lacagta maanta dhankaaga sheekeenaya lacag daayila adasaan yeelala lacagta jecelba ciyaaryahan lacag jecel lacag jecel muddo ya lacag neceb ma jiraan laakiin waa si kala jecel yahay wallahi wax lacag jecel aad u jecel marba lacag kaaga sheekeena maana ama taajir inuu noqdo kala rabo waxa waaye ninkaas ciyaaryahan Qubaay lacagtu jecel yahay waaya waxaan ka rabaa ciyaaryahan aflagaada badan aflagaada le maanta dhan ama macallin ha noqdo ama ciyaaryahan ha noqdo ama taageer ha noqdo wax le ciyaaryahan aflagaada badan ma arkin warkaas wali ma arkin waayahay waxaan ka rabaa ciyaaryahan maanta dhan jecel inuu sawir galo ama garoonka la joogo ama tababaraha ku jiro maanta dhan sawir Facebook adiga waa ka warqabtaa maxay igu dilay ay ka waa Hazazi iyo Qubaay waa dadku sawir Soomaali jecel ogtahay igu dilay waayahay waxaan rabaa inay sheegto ciyaaryahan hurdada aad u jecel maanta dhan hurdada kulankii soo dhaw maxaa kugu dhacay ka soo kac maanta dhan hurdo ku jiro tababarka dil jooga xataa isku hurdaya tababarka idoo jooga isku hurdaya ma hurdada jecel yahay habeenkii xilli hore jifta hadaa ku soo jilciyo habeenkii xilli hore ma jiifana hurdada jecel oo xilli hore sii jifta ciyaaryahankaas ciyaaryahan Ene waay guriga ka soo baxay guriga maanta ku jira ku jira guriga waay waxa ay sheegtaa ciyaaryahan aan hurdin habeenka aan soo dhafraay waxa deeq aari waa iyo Axmed Aliil qadkaas ka baxay deeq aari Axmed Aliil labadaas ugu badan ma seexdaanba ciyaaryahanka ugu Facebook jecel ka rabaa maanta dhan haduu Facebook helin aan joogin oo xanuunsanahay deeq aari wayahay waxaan ka rabaa ciyaaryahanka ugu badan ee bulshada u sheegay guulaha uu gaaray ama dadku evaad gareey markuu ciyaarayo maanta waa dheel rabnaa gabdhaha oo kale
wiilasha asxaabtiisa oo kale inta badan casuumo usii dega maano ciyaarta ka hor garoonka hala imaado dho ha atosh waayahay waxaan kaa rabaa ciyaaryahan bakiila ma ii sheegi kartaa gacan adag maya asxaabteeda wax baqiilan ku jiraan deeqsiyaal waa aadaa umahadsan tahay ciyaaryahanka lugta badan ugu lugta badan ugu lugeyska badan baawur raacinbo daa-ud tubaale ciyaaryahanka ugu cudurka daarka badan cudurdaar maanta dhan kulanka markuu soo adeegaya wuxuu ku dhaawacanahay madaxay xanuuna ii sheeg ninkaas baa iga dhaaftid waa u baahanahay u baahanahay saaxiibkii cabdicasiis maxamed cali cabdixsoomey waa haysaa waaye ciyaaryahanka maashatoorka raba maashatoorka maanta dhan inuu wax dil rabo ama aan lagu aadin haddii garoonka saxanka rasada galo oo saxanka dil la galo maanta cabdiqani buulle abgaalo raashin abis waayahay ninka ugu labiska jeclan kaa rabaa ugu labiska jecel maanta dhan inuu labista rabo hadduu gurigiis joogo xataa beentaa waa badan laba nin aan u qayliyey markay gurigooda joogaan xataa banaanka dadka macawisma ku fadhiistaano iyo tuutay iyo waxaa lagu fadhiisanaaba isud waa xazaazi iyo qubahay labadaas dhan labadooda waxaan kusoo gabagabeynaynaa ciyaaryahanka ugu hasaawaha jecel marba inuu hasaawo wax la sameeyo hasaawo nin walba jeceliye mudayo adaa kow ka ahe ana ciyaaryahan mihi laakiin ciyaaryahan adiga ciyaaryahan ku weydiiyey ciyaaryahan ma wax kale ciyaaryahanka iyo intee kala jiraan iyo saxaafadda maya waa saxaafadda badan maalo ugu hasaawa badan walaa iga muuqdaa walaa kaas najiib ciyaaryahan maa laakiin ciyaaryahan waa soo galaa baa dhacay sports asla maano soo galaa asnaftigiis ciyaaryahanka ka fikir ciyaaryahanka ugu hasaawaha badan marba meel inuu ku duula ama shimbir qoftaan la socda wallahi billah deeqaari ma ku turta saaxiibkay aniga wallahi been ma kuu sheegay ninkaas deeqaariya ogaa inuu ahaa laakiin ma ogaado hadda okay noqday aada umahadsan tahay waa wareysiga qaybtii labaad ee ciyaartooyda aan weydiinayay hore waxaa usoo weydiiyey ciyaaryahan daawud cabdullaahi tuwaal maantana waxaa weydiiyey ciyaaryahanka lagu magacaabo bile maxudiin buraale tan iyo wareysi noocan oo kale oo ku saabsan ciyaartooyga noloshooda khaaska ah intaan ku kulmayno sidaasi nabadgelyo